mukhtaar roobo oo xiriir toos ah durba la yeeshay al-shabaab booqasho qarsoonna ku tegaya deegaanada ay maamulaan iyo dowladda xasan sheikh oo godkeeda biyo ugu soo galeen arrintaasi ayaa dad badan oo Soomaali ah waxay markaasi baqdina xoog leh ku abuurtay iyagoona siyaabo kala duwan u hadalhaya haddaba aan ka dabageeyay daawade haddaad ku cusub tahay channelkeena xaqiiqa TV subscribe inoo saar si aad warbixinada joogtada ah ee halkan aan ku daabacno aad had iyo gooraale ula socoto mahadsanid Sheikh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya ee dhawaan la magacaabay ayaa durba xiriir toos ah la yeeshay al-shabaab waxaana la xaqiijiyay inuu booqday Bu'aale xarunta ugu weyn al-shabaab saldhigna u ah oo doonayo inuu faafiyo fikirka al-shabaab una fududeeyo weerarada ay ku qaadayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyadoona dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwooda ku sugan magaalada Muqdisho arrinkaasi ay cabsi xoog leh ku Abu Mansuur ayaa mar soo ahaa Ameerika xigeenka al-shabaab balse wuxuu qorshe u muuqday kaarto dagaal isugu dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya isagoo xilligaasi sheegay inuu ka tanaasulay fikirkii al-shabaab balse dowladii Farmaajo ee uu hogaaminayay Xabiib al-Malaayiin Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo sirtiisa ogaaday ayaa xabsiga dhigay hase yeeshee Xasan Sheikh ayaa markii uu xilka la wareegay xabsiga ka sii daayay xil wasiirna ku abaalmariyay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur balse wuxuu Roobo durba ku xirtay kooxdii uu ka tirsanaa al-shabaab dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa arrinkaasi waxay ku tilmaameen mid baqdina ku ah shacabka Soomaaliyeed waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in arrintaasi ay ka hortagaan maadaama Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo isagu markaasi dhiigyacab ah dad badan oo Soomaaliyeedna halaagay in dowladdu ay markaasi si iskeed ah ay xil ugu dhiibtay haddana ay haatanna la ogaaday in al-shabaab uu u shaqeeyo Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduu nool yahay tawbuu helay laakiin qofka marka ugu dambeeyo dhimanayo hadduu dembi si galo ku khatimo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tagay oo dembi waaweyn uu la tagay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minuun waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keenana ugu horeeyo Ilaahay baan u tawbad keenay oo tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan u tawbad keenay buu yiri riwaaya kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la leeyahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale haddii toosan aqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan ma aha tawbadkeena baraarugan leeyahay Soomaalidu war badan bay sheegaan waxay yiraahdaan dooliba tashaday bay yiraahdeen waa iska sheeko Soomaaliyeed markii uu kulaal baa nafta noo keentay maxaan sameeynaa markaas kii ugu roonaa baa yiri koor inta la soo qaado ama waxa la bahalkan jiriska la yiraahdo waxa tiraahdaa qoorta loo suru yiri marka bootin iyo waxay wax ku dishaabuu yiri gabashay markay soo boodo koortiga dhawaaqayso waa kala yaacayna taladii waa isla gooyay laakiin yaa qoorta u suraya marka kii suri lahaa baa la waayay marka waxa la rabaa in dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro waxa kale oo jirta maxamaha Soomaaliyeed waxay dhahaysaa budaalo wal iska la qayliyay budaalo wal iska la qayliyay bimaana qoomiya waa lagu wada qayliyaa leeyahay wax kale ma marka hadii qoomiyada in lagu wada qayliyay rabta ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanay lagu dhigeysanaya fariintaada guud ee dadku u diraysaa maxay tahay anigu fariinta guud oo dirayo waxa weeye Soomaalidu inay midoobaan dantooda iyo dalkooda iyo diintooda ay u midoobaan ay u midoobaan oo garabka is qabsadaan khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba mooshin baa la sidaa leeyahay inta meel la dhigo dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduu nool yahay tawbuu helay laakiin qofka marka ugu dambeeyo dhimanayo hadduu dembi si galo ku khatimo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo taas tawba la'aan inuu tagay oo dembi waaweyn uu la tagay bay sheegaysaa tawbadu way furan tahay wa tuubu ila Allah jamii'an ayyuhal mu'minuun waxaan leeyahay tawbad keena oo dhamaanteena tawbad keenana ugu horeeyo Ilaahay baan u tawbad keenay oo tawbad keenaya mar walba nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan u tawbad keenay buu yiri riwaaya kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd insha Allah ta'ala waxaan leeyahay baraaruga waad u jeedaan waxa meeshan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyay boqolaal la leeyahay ama burbursan yihiin leeyahay tan oo kale
haddii tu toosan caqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan maahe toobadkeenoo baraarugaan leeyahay. soomaalidu war badan bay sheegaan, waxay yidhaahdaan dooli baa tashaday bay yidhahdeen. waa iska sheeko soomaaliyeed. marka niyo mukulaal baa nafta noo keentay, maxaan samaynaa? markaasaa kii ugu roonaa baa yidhi koor inta lasoo qaado ama waxaa bahalkan jariska la yidhahdo, waxaad tidhaahdaba qoorta ha loo suruu yidhi. marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yidhi gabashe, markay soo boodo koortiyaa dhawaaqaysa waa kala yaacayna. taladii waa la isla gooyey, laakiin yaa qoorta u surayaa marka kii suri lahaa baa la waayey. marka waxaa la rabaa inay dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro. waxaa kaloo jirta mahmaha soomaaliyeedoo waxay dhahaysaa budaalo waa la iska laqayliye. budaalo waa la iska laqayliye bimacnaa qumaya waa lagu wada qayliyaa le, wax kale maaha. marka haddii qumayada in lagu wada qayliyay rabta. ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya, lagu dhegeysanayaa. fariintaada guud ee dadka u diraysaa maxay tahay? anigu fariinta guud oon dirayo waxa weeye soomaalidu inay midoobaano dantooda iyo dalkooda iyo diintoodaba ay u midoobaan. ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan. khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba un mooshin baa la sidaa laleeyahay, inta meel la dhigo dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduuba nool yahay toob buu helaya. laakiin qofka marka ugu dambaysoo dhimanayo hadduu dembi sii galoo ku khatimo oo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo, taas tawba la-aan inuu tegay oo dembi waaweyn uu la tegay bay sheegaysaa. tawbadu un way furan tahay. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. waxaan leeyahay un tawbad keena oo dhammaanteenana tawbad keenana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay, una tawbad keenaya mar walba. nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yidhi. riwaayo kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd. insha allahu tacaala waxaan leeyahay un baraaruga waad u jeedaan waxa meeshaan ka dhacay oo hal daqiiqo la baabi'iyey boqolaalna la la'yahay ama burbursan yihiin. waxaan leeyahay tan oo kale haddii tu toosan caqli ku toosan diin ku toosan dhaqankii ku toosan maahe toobadkeenoo baraarugaan leeyahay. soomaalidu war badan bay sheegaan, waxay yidhaahdaan dooli baa tashaday bay yidhahdeen. waa iska sheeko soomaaliyeed. marka niyo mukulaal baa nafta noo keentay, maxaan samaynaa? markaasaa kii ugu roonaa baa yidhi koor inta lasoo qaado ama waxaa bahalkan jariska la yidhahdo, waxaad tidhaahdaba qoorta ha loo suruu yidhi. marka bootin iyo waxay wax ku dishaa buu yidhi gabashe, markay soo boodo koortiyaa dhawaaqaysa waa kala yaacayna. taladii waa la isla gooyey, laakiin yaa qoorta u surayaa marka kii suri lahaa baa la waayey. marka waxaa la rabaa inay dadku dhiiradaano qoorta loo wada suro. waxaa kaloo jirta mahmaha soomaaliyeedoo waxay dhahaysaa budaalo waa la iska laqayliye. budaalo waa la iska laqayliye bimacnaa qumaya waa lagu wada qayliyaa le, wax kale maaha. marka haddii qumayada in lagu wada qayliyay rabta. ugu dambeyn marka toos baa lagu daawanaya, lagu dhegeysanayaa. fariintaada guud ee dadka u diraysaa maxay tahay? anigu fariinta guud oon dirayo waxa weeye soomaalidu inay midoobaano dantooda iyo dalkooda iyo diintoodaba ay u midoobaan. ay u midoobaan oo garabka isqabsadaan. khilaafaadkan kale intay jaanib iska dhigaan oo marba un mooshin baa la sidaa laleeyahay, inta meel la dhigo dembi kasta hadduu soo galo qofka hadduuba nool yahay toob buu helaya. laakiin qofka marka ugu dambaysoo dhimanayo hadduu dembi sii galoo ku khatimo oo 100 nafood 200 300 oo ku khatimo, taas tawba la-aan inuu tegay oo dembi waaweyn uu la tegay bay sheegaysaa. tawbadu un way furan tahay. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun. waxaan leeyahay un tawbad keena oo dhammaanteenana tawbad keenana ugu horeeyo ilaahay baan u tawbad keenay, una tawbad keenaya mar walba. nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinkii 100 jeer baan loo tawbad keenaa buu yidhi. riwaayo kalena 70 boqolkan isdiidi maayaan be taasay ahayd. insha allahu tacaala